بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم نفتيدي هذه التعاضى وحانوكو بشارين يا إلهي إنو نسوق قرسي بشي بركيسنات رمضان بشي بركيسن رمضان وبشي قرآنك اللي سويد جي وبشي سلفكو انتي وحو البدن إساقا ديغان قرآنك سوق قابلي جرين إنغانه taa waxaa inoogu sugan ku dayasho wanaagsan. bishaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan. qur-aanku waa hanuun, wuxuu hanuun u yahay nafta iyo ruuxda, wax walbo ayuu hanuun oga yahay. baadida waa caafimaad, wuxuu caafimaad oga yahay cudurrada qalbiga ku dhaco dhan ee ruuxiga ah. waxaasoo dhan buu qur-aanku daawo u yahay. waa xasilooni, waa deganaan, waa raaxo. qur-aanku waa kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala. qur-aanka ilaahay markaad akhrinaysid adigoo ilaahay la sheekaysanaya subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, qur-aanka aynu ku dadaalno. nabigeena calayhi salaatu wassalaam markii la gaaro bisha ramadaan, asaga iyo jibriil, malakul jibriil oo sayid ulmalaa'ika ah, iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qur-aanka wada akhrin jiray oo daraasayn jiray. habeen walba way daraasayn jireen. walaalayaal, inagana taa waxaa inoogu sugan ku dayasho wanaagsan. cuthmaan ibni cafaan, saxaabiga la yidhaah radia allaahu canhu wa ardaah, wuxuu dhihi jiray low dahurat quluubukum maa shabicat min kalaami rabbikum. quluubtiinu hadday daahir noqon laheyd kalaamka ilaahay kamay dharagteen. macnihii qur-aankii haddaan ka daalnay, macnaa qalbigii baa daxalaysta oo wasaqaysta. laakiin qalbi nadiifa oo jilcan kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kama dhargo. saas darteed buu cuthmaan radia allaahu canhu hal habeen baa laga yaabaa inuu ku dhameeyo, sida salafku ay soo wariyeen, inuu ku dhamayn jiraba ragca waaxida oo ayadaa keliya uu dukanayaba, qur-aanka oo dhan uu ku dhamaynin. imaamu daari lhijra, imaamu maalik, haddii bisha ramadaan la gaaro, isagoo imaamkii xadiidka ah, wuxuu iska dhinac isaga dhigi jiray duruusta kale oo dhan, wuxuu soo qaabili jiray qur-aanka kariimka ah. sidoo kale imaamu shaafici raximahu llahu tacaala, bishaan markii la gaaro ramadaanka 60 jeer buu qur-aanka dhamay jiray. macnihii 24 saacba 2 jeer buu qur-aanka dhamaynaya. manaa wax kalaba ma fiirinayo, kuma mashquulayaba. waana suuragalo qur-aanku waxaa lagu akhriyaa 10 saacadood oo qura. imaamu axmed sidoo kale, imaam abu xaniifa sidoo kale, imaamu albukhaari habeen walba wuu ku dukanaya qur-aanka. 3 habeenba qur-aanka wuu dhamaynay. habeenkii marka 10 jus buu ku dukanay. waa imaamu albukhaari raximah llahu tacaala. inagana waxaa inoogu sugan ku dayasho wanaagsan. waad ogtihiinoo culimadeynii iyo macalimiintii aan soo gaarnay dhammaan sidaasay ahaayeen, qur-aanka kuwa ugu dadaala. salafki sidaasay dhihi jireen. khaalid ibn alwaliid iyo saxaabadii waaweyneed oo dhan waxay dhihi jireen qur-aankiiba waxay dhihi jireen waxaa naga kaa mashquuliya jihaadki. annaga maxaan dhahaynaa maanta? jihaaz baa naga mashquuliya, waa taleefon iyo musalsalaad iyo waxaan u qalmeen bishii ramadaan, iyo soo jeed iyo dhafar cidlaa iyo siyaasad baa waxay naga mashquulisay kalaamka ilaahay. wallaahi quluubtaynu hadday maanta nadiif ahaan laheyd, qur-aanka ilaahay bay soo qaabili laheyd. laakiin qalbigii qoyanaa ee oyn lahaa ee ka toobad keeni lahaa qur-aanka ka tegitaanka uu ka tegay aawo. mise waxaa naqanay maxruumiintii la yidhi yaa rab ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. qur-aankii bay ka tageen oo qur-aankii bay ka dhaqaaqeen. ilaahay baan ka magan galna subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, bishaan waa bishii qur-aanka. naftayda iyo tiina waxaan ku boorinayaa inaynu qur-aanka aynu u soo laabano, inaynu qur-aanka xoogga saarno, inaynu qur-aanka intaan akhri jirnay ka badan inaan akhrino, inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan kula galno intii tabartayna aho khatamaad oon akhrin karno inaan qur-aankii dhammayno, inagoo ku tadaburayna oo macaansanayna oo ku khushuucayna qur-aanka kariimka ah. qur-aanku walaalayaal waa xarigga ilaahay subxaanahu wa tacaala. qur-aanku waa daawo, qur-aanku waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala, waa hadalka ilaahay. walaalayaal,
qur-aanku waa wehel waa caafimaad qur-aanku berri buu kuu doodayaa adiguu kuu doodayaa yowma alqiyaama wuxuu ku dhihi doonaa ilaahayow habeenkii inuu seexda baan u diiday asiyaamu waalqur'aanu yashfacaan nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam soonka iyo qur-aanku labadaba way ergeynayaan soonkina muxuu leeyahy ilaahu maalintii baan cuntada iyo cabidda u diiday qur-aankina wuxuu leey ilahu hurdadii baan u diiday anigiiba way akhrin jiray qur-aanka walaalayaal keliya maalintii 24 saac inta waqtiya taleefanadayna aan siin haddaan qur-aanka siino wallahi wax badan baa noloshayna iska bedeli lahaa aan qur-aanka usoo laabano naftaydiitiina waxaan ku boorinayaa mashaaqilka adduunyadu wax dhammaanaya ma aha qur-aankeena insha allahu tacala inaan usoo laabano qur-aanka kariimka inaan xooga saarno inaynu bal qur-aankii intaan usoo laabano aan quluubtayna ku daaweyno aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub quluubta walaalayaal waxay ku xasishaa dikriga ilaahay ilaahay subxaanaه wa tacala waxaan ka baryaynaa allahuma ajcal alqur'aana alcadiima rabiica quluubina wanuura absaarina wajalaa'a axzaanina wadahaaba humuumina waqumuumina salى اllahu calى nabiyina mxamed